markaas waxaan ku dhahay ilka saaxiibka waxaan ku dhahay barfa dudaay ala dilaa dhintay ilaahay ku dhaafay maanta oo faanani adiga warwala wad mar leeygi ninka oo dhahnimo wadanka ku cusub tahay hay wadanka juugiisana ma taqaanay barafkani dhibaatadu leeyahay niyo baljoog adiga min jacayl wada tahay ana jacayl hay أنا تمركا أنت من مريكانك باور سيد الله صوت عن قصة برتي كينيا أو أنت برفانك على قصة قادتي ويلير أيام كعست حنا صوب كذا تقانا دولك براك ساسكون في عدي سيفي إحنا قلنا هاي أبو قال لي أنا قاري وضعي النودي صباح هاي قاري دحنا مركان برا برا فبلاو الله يسلمك هاست بوليس دواء هاي حواي ننا شرع لنا تا شرع لنا لو قبتي شرعي غاري لو كحينا ورتي ده اللي سينا يا هاي تيجي يا اللي سينا وا صوت دول لا مري هاي بوليس هو على هاي بوليس مركا هو على انا غاري ودي انت ما باش فدي انت كعبه ويل كيران فريسي هاي مركان سان محن هاي ادكس كنا باور كود ودكنا قوسم باينه وشك هذا لغتك في عنه على كل حال قصة يقول أن ودمتها قصة وقت بدنا منه قصة دير وأنا مرت مركلت لكن تاسع بدك كويتا مرنا عشان على الأذية وهي هي سؤال بدنا كويدين ولا شيء كوساب سنفن كاجا ضد بدنا كوتاجر وحسلين الكعاسة هذه لدينا هادتك كوتاجر واحدة محدي لها ما حد يلدها ما شعب الصومالية وكوتاجر ولي جعل مرة والبا إنك المدة هذه مقلان فنكا وكراحة يست ما حد يلها شنت الصومالية صومالي وين وحنده لها قبيل قرن مدسو عاديات ما انت داتك فرنسا هولند مريكانك ودمن عالمك كود هور مرسم هير وحي قارين ودنكوda ay ka dhigaan dhalo meelaha qaar hawadooda iyo hawadeena isku mid ma anaga ka hawa macaan عاديات cimilada shacabka Soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa qofkii khaldan ala toosiyo wadankana loo dadaalo qabiil caawa ka bilaabata meel la iska dhigo الكعسة دردارنكيسوا أنت تاجرت الكعسة حلية قبيل كمالها نسكدقو عنك حلقات الصومالي ومد قرى وفضل مرك اللي يتقيد هذا عنك بلوغ هذا يا كتمرك الله شنت الصومالي وياي إلا أنت سيجوه دون تا عاصمة المقدشة وهذا أقصد أنتهي من نقص على مرة سويت جيب حقيقي وطا واجبت حمر صدقتي من الله ما سعتي وياي هذا ما سنتهي وجيت كفنك أوصل شيء ما أنا العكس شو ما أنا مقعد شو ما أنا مسار ما كان أجره فنك حوصل قلي الشعب الصومالي dartiis ayaan soo galay dalkayga dartiis ayaan soo galay oo ilaahay igu ogyahay oo maanta qof walba markuu dhinto amalkiisa ayuu la gelayaa godka wayahay dhinacii suugaanta u noqonayna markan heesahaaga niyahow heesta aan soo wado oo aan soo qaban doono hablaha qaar way ka caraysiin doontaa waqtuga ma dhaafin karnaa niyo kala baro iga baro dadka atiri hees kala ma weyd asku dhigan habli adiga asku dhigan ma kulli ma gabara inana ku daadinaysay see u socotay heestan inta u socotay heestan dad badan oo igu dhigan waa arkay hay heestan shay ani dhalinyarada hadda wada fadhin Cabdinaasir hay ay wada fadhin markaas دعاب عمرك أقول سنك الله دعاب دنكور الله وحلاها اللي شاكري هاد قبر قبر وحليري قبر سنواي قبر كوسواي قبر ما حقول عليك على براي قبر داتك عادي هست معها مد هوانك كوسعته سما هوانك كوسعته لكن مايك تشيك marka waxaan leedahay heestan waa mid noocaas ku timid ereediyaas kale ereed waxaa qoray wiil la yiraahdo wiil wadani oo la yiraahdo abwaan baasha qaran abwaan baasha qaran waxaa la xameeyay fanaanka
boqorka dhaantada oo la yiraahdo xasan kantaal codkuna waa hadee codka ninkan caanka ma layska wada garaa boqorkii raabka ayay ilka case heestan dad badanaa kusoo wacay kulley oo kusoo weydiinaya su-aalo ku saabsan sida tan hadda anigu waa ku weydiinayo kale ma inan baa isjecleedeen oo leedahay kala baro iga baro dadka mise dadkaasoo kale maxaa ugu jawaabaysa marka maxaa ku lahayd علشان dadkii xaga qabiil camal ka dhigay heesta horta qabiil maxaa ku faanaa qabiilkay horta ciyaalka dad dhalinyarada aan la soo koray kuwaas aan isku qabiil lahayn meel bay joogaan puntland xamar meesha noqoto burco ogaadeenaya everywhere maogtahay marka aniga dadka maanta saaxiibada hadaa fiiriso kulli hadda wallahi oo idaacade mid aan isku qabiilna ma jiro brada haddii daacad laga hadlaayatee laakiin qabiilkeena wuxuu noqday calanka balooga qabiil maxaa ku faanaa marka Soomaalida ku faanaysa Soomaaliya ku faantaa shanta exactly marka heestan qabiil kuma saabsano laakiin tiiq maxay ahayd xadiid xajar kullu shay acmaal بالنيات قف الربو قاضايا يديسه انا قد ما بعد سمان قاضته سمان بهيستاتا قف هذا حمان قاتن كلي dadka heesahaaga adigu wanaag oo la jeedo xumaanta u fasirta waxa la dhahaa ilka casalida ilka casalida isma bedelayo shacabkayga kama taalahay dalkayga kama taalayo iyo qabiil ku qaadin qabiil iyo ku qaadin ilka case intuu god ka galaayo sahan ayuu shacabkiisa iyo dadkiisa ugu doodi doonaa aad waayahay markana waa kala baro iga baro dadka hiya kuma baan gabaryahay bartay badankii qalbigaada ma bogsiin karo iyo beentaad ku darisata ay kusan hay barin buqaydaka kuma baan gabaryahay bartay badankii qalbigaada ma bogsiin karo iyo beentaad ku darisata ay kusan hay barin buqaydaka maysadka kuu baray lama baadi kare habaruuran nasiibka u yeeshaa noqotay magacaaga sheeg walaashay أنا كوم هاد علينا ولكن عبد الناصر مجاي وبشارة أحمد شيخ بالخير وحاجة كسوة يا دمنا كران جوال كبنادر بشارة عاون نصيبك يا كورن كمان نجستي وملايين قفكي وغورين نقطع عاون نصيبه يا شباب مش كانوا كتب قلب وما صوت هاي عبد الناصر ولكن وإذا ما هاد علينا سيجارنا أنا أقول حسن هاي نصيبك يا هبون ومركا يسور تجلي على سبحانه وتعالى إن نقول مركا قفك وغوري فنان قرن فنان قالي التقى مركا عاوز سؤالها اللي بلاوي أما صاحبه وغوري ولها اللي دون إن قياد فنقول وأنا إذا كم هاد علينا سيجارة بهدور بهن تسعوين درس الراديو سيجارة ولكن عبد الناصر هذه صاحبه عاو برامج كان لفت كان شقينا يبا هاي أنا أقول لكم هذا علينا ما كان يتعيط على شيء الكعسة هذا ما صنطع ولكن والله وسؤال مركا عجيب مركا تاجرياش الكعسة ما كم يتعمل كل يرادو هذا حال كيبو هاي ملايين تكون مركا هذا مركا قبل كان نجد شو بنادر عن مركا عدكو ضافوا عليه تاجريال بوحة واحد الفنان الكعسة قيس أنه تاجر ولكن هي مركا هذا قبل نادي كويس ودني جاهو مركا أنا وأنا نشعل هاي كبشارة الخير ولم يسمع الكعسة ولا هذا دونتا ونسيا يرم دونتا وما تصنع ولكن والله وكل مجري همي وينو هاي مدام الكعس وياي روح الصوماليات أفك الصومالي كانوا كهذا أنا هاي مركا دايرة الصوماليات مركا مرة ويدعي دون تامشي نقطب الكعس إن مركا نصيبه ويلدون إن الله مركا عاد كعلنا وربعين الدلسن وصورة جيل ساعة وإن الكعس الله عدني عادن وقم هاجلني يا ولكن بعض مركا كشقين سي بعض اسكت سود برد عليك بقيب أسكت هاي سؤال شابعاو هذا ما صنطع ولكن والله سؤال شيء ذا بحقيقة مهمسن لهذا اللتان كإينا بكا عدكي سبحانه
toos barnaamijka oo ila hadlo walaalkay maxamed qays waxaan leeyahay dhiigga markuu la hadli doono bishaar dhiiggahay waa ujeeda waxay leedahay inaan su-aal weydiiyo waxaa iga muhiimsan in codkiisa ama uu ii jawaabo bishaar bilkhayr ما هو حنا بشارة وصورة sheekada caawa bishaara lagu بشارة ayo bishaara cabdinaasir waa idin hadalinayaa horta sheekada soo dhamaystiranay xulkaas walaalkay waa ka sugaynaa inuu markaa noo faahfaahiyo maadaama uu jangalka idaacadda maalmihii ugu dambeeyey saarnaynay qaybkeedin barnaamijka marka ani su-aal koobanaa weydiinayaa inkastoo heesaha faraha badan uu qaado si gaara hees haddii suurtagal ee noqonaysa caawa marka in yar inuu codkiisa uu ku qaado deetana oo markaa farsamayaqaanka uu nooga dalbi doontaan rajeynaya laakiin su-aasha ugu horeyso aan jecelahay xulkaas inaan weydiiyo waxay tahay aad markaa saaxiibada kala horta heesaha iyo meelaha uu kasoo galay waxyaabaha u daynaya laakiin anigu dhanka sportiskan kasoo maraya maadaama hadaladiisa ugu horeeyay sportiska uu sheegay inuu aad ugu jeclaa markiisii hore si wanaagsan marka su-aasha weydiina waxay tahay markii yani kubadda cagta laga hadlayo keliya naadiyada markaa ka ciyaaro yurubta ma kala qaadayo naadiga keliya uu ka taageero haddii ay jiraan inuu markaa sportiga halkaa uu dibadda wax uu ka taageero ma horyaalka Premier League ma kan Spain mase Europe oo dhan ما صنت عادي يعني كل دور شيء تاع إنجلند بريمير ليج أنا كنت دورنا يا هوريال كعدو كتاجر waayahay su-aashaas waxay tahay in horyaalka Premier League naadigu ka taageero inaad ogaatid waayahay bishaar aad u mahadsan tahay الكاس أيوة حاول نفتركي وجعلنا وقاعدة هاي وين دي الله ما تنا نسيكي ويان دنيا ده هنا هذا دقوني دقوني بجرت ما يسوي سيدس بناي يعني فري وحن يجريات هذا تانكلا يا كلا يجري يا كلا ونسكو جيم يا وينجا وينجا بدنا أرسنال دولار هلي الكعسي وجعل الله يدا وقانو أرسنال لكن هذا لكن مركز اللي ده أرسنال مركز واجد الآن دي بقى كوجاني مركز ده أرسنال صار بلاد ما تغير تيم بي واحد بسم الله مو وين يا تيم بي بسم الله أنا ما استاق شعرنا ما سنت أقول هذا علمي ما بقرده هي أنا ما سنت بقرده كارا بقرده كارا نتا وحوا إلك عسى يا كارا اسمه رجعان بشارة عاوة لكن نسيب ويا لتقف كجوري النقطة هاي مركعة هيس قاديسو oo lagu keenay heesta ama boonku keeno ereyada ma ku doorataa laxanka ma ku doorataa muusiga ma ku doorataa heesta ma ku doorataa ilkaas ahaan heesaha boqolkiiba 80 horta anaa qorto adaa diiwaankoodii ama heesaha aan badanaa qaado raabka fanaaniinta waxa dheertay ku jirta laakiin abwaani badan heesii qor waa jiraan sida abwaan hurfa cali qayle أبوان باشا قرن أبوان صادق لاب صالح وسيار واشنطن جوجو أبوان محمد أودون لما مسكوا أنت كنت ما يكون سميان مركا دورشة ما موسيقى دورتها وما محاضرتها رياضة محاضرتها لحن كهست قاد نوعين كجعليسي محل كجعليسي هست أنا هست هست ما كرجع على هاي لكن محقاد وجع على هاي سنة والدنيا لكن هست وحق دورتها أنا waxaan kaloo halkan ka salaamaynaa abwaan cabdirashiid caaqilka iyo boqor cabdimudalib iyo dhammaan heesta waxaan ku doortaa inay miraha haddii ku anfacaan laxankii iyo waxaa waaye inta kale waa israacayna inta kale soo bisaalaa waayahay soomaalida inta badan dhibaatooyin badan ay ku jiraan dalku xaalada adagu soo maray dhalinyaro badan aa tahriibtay adigu wacyigelinaa samaysay hees tahriibka qaaday oo runtii aniga kuuka aniga kula hadlaayo kula fadhiyo kuuka dadka heestaas aad ku jecel mar walba ma tahriib laakiin way ugu jira laakiin marka heesta dhegeysta dadka heesta ay ka reebtaa ku jira maasha allah waxaa waaye shaqada waajibkaaga maasha allah waayo ayaa ku mahadcelinayaa heestaas sidee kugu dhalatay maadaa sameeyey ma lagu sameeyey heestaas waxaan suubiyey abwaan saatiq lab sarax
وأبوان كهسا سيدي أنا هستي غير أصلا قادنا داده قاري هسا بدنا ودي هسا بدنا الله أنا وفد إنسان وفد إنه يا تاريخ الجديد صومالي دينا وانما نذينا يا سلام والله مكان بخورنتي حاجة ده أنا في الماء في الصور وخلها أفضل بقول الكوكا لأن يرى الصومالي أي تعريف كل مت إنك عصر تقالنا إنك كجولنا أتقالنا هذه الشنطة الصومالية كلارتو والله أفضل بقول الكوكا لأن يرى الصومالي تعريف كل مت تعريف كل مت عشان تصومالي عاوز بنا قلتها حواي أنت في سوقات ميكروفون اللي بيجي بقى هذه عدك هلاسي هي هيستم تنهى بالتهريب دائرة جديدة تملك الأكيد صومالي جديدة ولما جديدة دي بوي تهريبك هلديدة صومالي جديدة ولما شعود وحن جوجا عينسكا إلك عسى آذي الأسلامية سلام كل إلا بيجارسي بقر كي آذي يا أتاجراي تري وحن تروح ويدينها عنه هيسيسا هيستوى جعلها إلك عسى مركل يراد إلك عسى هيسيسا أو يبنين هذه هيس أو برتلمان دوا أما هيسيسا كلا أنا ما بيجي من إنك استوى جعلها لكن إحنا هل هي سرّة وإلك عسى آذي جعلها هنا وقاده هنا وقاده heesahayga waxaan ugu jeclaa horta heesaha wadaniga dhowr heesood ma dooran karaa mise hal hees baan dooran hal hees waay hal hees leedahay hal hees bay uga degan tahay ilaahay baan kugu dhaashay halka hees loogu sawiraya barkii hal hees igu soo booday waxaan doortay Soomaali baan haysan ku naflan sareeya sanku dhuudiyo waqtiga ku siray Sayid Abdullah Xasan way hay aad caasho waxaan filayaa inaad ka qanacday dhageysta kale waxa yiri Maxamed Xasan Jabaan ayaa lagu magacaabaa maya Facebook ka saaday wuxuu joogaa dalka Kenya magaalada Nairobi ilkaas aad ayaan u taageerayaasha kamid ah uu leeyahay heesta igu sawir raba inaan ogaado ujeedkeeda way hay jawaabtaas dib u dhigan doonaa qeybaha dambe ee barnaamijkan ka dhigan doonaa dhageysta kale waxa uu yiri assalaamu calaykum aad ayaan u taageeraa ilkaas magacaygu waa Canab oo joogta Banaadir gaar ahaan waxa tiri ilkaas waxaan dhihi lahaa waayahay asigu muxuu jecel yahay wax uu jecel yahay noloshiisa arrin wax ka ogaado waxa uu jecel duga gartay adduunka waxaan ugu jeclahay waalidiintayda aad iyo aad caalankayga shanta Soomaali aad iyo aad familkayga dhammaan saaxiibaday dhammaan saaxiibaday ku wadaniga kuleena wadani ma saaxiibalaha dhinaca commentiska iyo fariimaha ileenka baan ku soo noqon doonaa markiiga waa hadana أنا عبد الناصر مركز عبد الناصر maxaa ka cabsataa ilkaas علشان aan ka cabsado naftayda naftaada waxa kala baqato midra dooda waa loo dhahay geesi hooyadiis fuligiis ma gablantay geesi geesi hooyadiisa gablanta aad iyo aad fulina hooyadiis ma gablanto geesi hooyadiisa gablanta ayaa loo dhahay hadigaanta maxaa ka cabsataa markaas waxay tiri anaa gablami lahaa aad iyo aad sharaxaadeeda waa nin baqamiye ma baqdin haddii aan maanta aan baqi lahaa waxyaalaha qaarkood ma soo biyaan aad iyo aad aniga laakiin waan ku faraxsanahay haddii tii ilaahay waa gooni haddii aan maanta dhinto anaga bilowga ayaa aniga maanta kafan iga dhigaya aad iyo aad taasaan ku faraxsanahay waayahay ilkaas baraha bulshada aad u haysataan iyaho taageero badan aad leedahay waxaan daawanayay muuqaal adiga oo meelan ka mid ah magaalada muqdisho gaar ahaan moolka muqdisho ku dhex jira oo lugeynayo dad badanna ay haddana ay ku leeyihiin ilkaas haye nin waxa kaaga yaabay xagga tixgelinta muuqaalka aad u daawanayay gabadha waxay ku lahayd ilkaas sawir ma kula geli karaa
jawaabtii aad bixisa xasta haa waa la geli kartaa soo gal meel gudaha oo carwaa wada gasheen oo sawirkii meesha lagu qaaday wiilal dhalinyaroo kala arkaayay marka meelahaas joogtid maxaa dareemaysay oo dhalinyaradii soomaaliyeed iyo meelaa wada joogtaan oo adana ay ku muujinayaan taageerada ay ku qabaan oo sawiro ay kaa codsanayaan waxaa weeye fanaanka soomaalida fanaaniinta ma oga boqolkiiba 80 wax yar baa og fanaanka lagu sheegaayo shacab ayaa fanaanka dhigay aad iyo aad taasaan baynahayn haddii lagu taageeri waxaa uma tiid waa sheekada aniga waa dad badan oo soo qoray dhahayo isma dheheen masjidka markay soo diraan facebooka isma dheheen ilka casa ku soo jawaabay snapchat-ka 1.4 milyan ayaa la socota isma dheheen ilka casa soo doonta inta waqti hayo aniga ilka casa waxaan aaminsanahay maanta ilka casa haddaan maanta heer ka gaaray fanka shanta Soomaali ilaahay ka soo shanta Soomaali ayaa i gaarsiisay marka waxaa leedahay ma iloobi karo dad oo yacni iska weynaysiin kara ma ahan waa ku faanaa shanta Soomaali nin shacabkiisa iska weynaysiina wadani ma haddaan ku sheegay aad iyo aad wayahay muqdisho cable TV barteena Facebook radio Dalsan live ay dhageystayaasheenu naga daawanayaan sidoo kale waan soo dhaweynayaa commenteska hoos ay noogu soo qori karaan muuqaalka halka ay ka daawanayaan sidoo kale si share garay muuqaalkan si asxaabtaada kale oo u gaaro barnaamijkana ay u daawadaan waana ku mahadcelinaynaa qaabka wacan dhageystayaasheenu ay nala socdaan gaar ahaan taageerayaasha ilka case radio Dalsan muqdisho cable dhammaantood waan soo dhaweynaynaa ilka case mar walbo oo isdhaho waxa weydii su'aalihii baa xataa laftirkeygu kaa farbatay waxaa waaye dhegeystayaal badan oo su'aale ii soo diraayo laftirkoodu leh bal noo weydii aan ogaan ilkaas xaas muu leeyahay qofa soo qoray ma leeyahay ilkaas aniga reer waan leeyahay alxamdulilah maxaa udu ku jooga 3 wiil baa jooga alxamdulilah maasha allah waxaa la kala dhahaa saajid saahim iyo saarim saajid waxa wala heesaa qaar saajid iyo xabaartay aad iyo aad dadka badan waxa dhan magacadan inta ka keentay waa soo xalaan ku dhacay da'yar badan oo jecel in fanka magaca ah samaysay oo kale inay sameeyaan dadaal badan ku jira fanka ku jira kuwan ku jira maad kadib jecel inay soo galaan maxaa dhihilayd ayaga hadal dhalinyarada Soomaaliyeed oo fanka inay soo galaan jecel magacaad samaysay rabo inay sameeyaan waxaan dhihi lahaa ilaahay baan ku dhaarshay haddii aad fanka u soo gelaysaan inaad dumar ku shukaansataan ama aad u soo gelaysaan inaad camal goboleedaada ugu haystaan ama qabiil dartii u soo gelaysaan ama magaca inaad ku yeelataan u soo gelaysaan ilaahay fankaa kaa madoobay laakiin haddaad u soo gelayso dalkaada iyo dadkaada ilaahay ha kuu fududeeyo waayahay waxaad noo sheegtaa ilka case fanaan weynaa tahay oo dad badan ay taageeraan waxaad aadaa safaro meelo kala duwan wadamada caalamka meelaha aad aadayso fanaaniinta ku nool fanaaniinta qaarkood laga yaabaa inaa isku wanaagsaneen qaarkood isku wanaagsantihiin badi marka ka waran xiriirkaa u dhexeeya meelaha tagayso ma fanaaniina ku tashataa marka meel aaday sidoo kale ma inaad fanaaniinna sii balansato ma inaad dad kale caadi asxaab kale see ku aadaa meesha muqdisho kale markaa soo aadaysay ma fanaaniin ma dowlad ma sidee marka sidee ku aadaa meesha aadaysid qorshaha u aadaysid markaa rabtid inaad fanaan show rabtaa inaad ka qabatid tusaale hadda muqdisho markaa soo aadaysay ma qof caadiyo ganacsada ah ma qof fanaan ah ma qof dowlad ah see ku timid hadda mise meel walba tegaysa see ku tagtaa qorshahaaga muxuu yahay ku tegaysa aniga horta runa horta mise been runa rabaa فنان صاحب ولا ما يبي فنان انت ده صاحب من البلد عزبانه ما قرا محايا فنان ده صاحب النقطة رأيي سيسكو ده أنا كوبا ورا أنا من عن جاهي أنا بروح رأيي وأنا جاي ضد الشعب كذلك أنا صوبي muqdisho waxaa ku qabatay show laga yaabo meelo kale hataa ku qabatay sida Nairobi iyo meelo kale badan Sweden muqdisho show laga yaabo ku qabatay taageero badan showdii muqdisho ugu saameynta badan kii ugu horeeyay dhihi karnaa ka waran ka showgaas markaa qabatay waxaa dareentay iyo dadka ku yimid
caasimadii dalkaaga adigoo jooga showgiyaa qabato taageerayaashaadiyo intaas leeg inaad aragto ka waran bal aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaa weeye meel show lagu qabto show wadani meel lagu qabto waxa ugu fiican xamar aniga hadda ka hor waxaa jira kilib yaro laga duubay oo iga duubeen dhalinyaro wadani aad iyo aad oo magacoodii dhasor kilibkii isaga habaan waxaan leeyahay waxaan fanaaniinta shanta soomaaliya ugu baaqaya inay xamar imaadaan ilaahay amarka u yeergashay aad iyo aad maqan fanaan baa imaaday fanaaniin badanaad timid 11 aad iyo aad inay kasii badan yihiin kuwa hore u yimid kuwa gadaasha yimid marka muuqaalkaa samaysay fanaaniin aad iyo aad waxaa muqdishoa marka ciyaal xamar haddaan naashidanaan markaas aad iyo aad waayahay iska eeg gawaarida ogaga waa heesahaaga cusubay ka mid tahay mamii dhantasaas dhegeystayaal badanaa dareeraya inay maqlaan oo barnaamijka ma haddaada garanayn gobol kale inuu dhacay waxaa waaye afwaanka qorinta ana yaa qoray cabdirasaaq bulqaas la yidhahdaa ereyada laxanka yaa saaray marka boqor cabdimutalib oo nairobi jooga muusigana waxaa saaray cabdicasiis alcazal oo xamar jooga ciyaal xamar waaya ciyaal xamar waaya waxaa waaye iska eeg gawaarida xamar ay ka shidan tahay waxaa waaye xamar way kala kacsantaa soo maa waa xamar waa shidanta waayahay iska eeg gawaarida dj boy ilka case bal heestan maxaa ula jeeday ma qofaa in jaceyl lagu dhumiyey leeyahay waa kaa tegay gawaarida iska eeg anigu waaba kaa tegay gawaaradii ku dili miyaa sheekada abwaan cabdirasaaq bulqaas inay weydiinayeen anigu hadda ka ayri marka wuxuu yiri mar haddaadan garanayn gobolka inuu dhacay waa waxa u dhawid marka waa iska socotaa dadka qaar siyaasadda u fasirtayba marka waxaan uga salaamayaa abwaan cabdirasaaq bulqaas waxaan ka halkan salaama kalete aj events boqor muuse hanad daare waxaa kaloo halkan ka salaamayaa dj madaale oo inta meel jooga dj madaale waa nin wadaniga hadda uu baxa faamilka u tegay aad iyo aad baan salaam ayaa xamar dhan baa sayna salaam waayahay ilkaasow facebooka isticmaashaa fanaan magac lahaa tahay marka ilkaas raadiyo boqol ilkaas ay soo baxayso oo iga xadeen bisee ku garan karaa marka dad asxaab badan oo ku wareersan qaarkooda laga yaabaa in dhaqan aan adil lahayn loogula dhaqmo sidii lagula hadlo bal see ku garan karaan facebookkaaga saxda ah facebookkayga saxda ah waxaa lagu garan karaa qofkii facebookkayga saxda haysto waxaan leeyahay boorkada carooga life soo gal waryaa haddaad u sheegayso kuwa siyaabo kala duwanaa loo isticmaalaa dada waxaa laga yaabaa in mucaarad ahaan ay u isticmaalaan facebooka kuwo waxaa laga yaabaa inay wanaag u isticmaalaan kuwa wanaag u isticmaala jiraan maxaa leedahay marka horta kuwa wanaag u isticmaala aad iyo aad baan salaamaya kuwa xumraadiskana hadee ninkan ilka casar lahaa aad iyo aad ilka casar ayaa la dhahaa ilaahay aan baa celin karo haddaan kuu sheegaya waxaa waa boqorka raab kugu tegayaba ka tago ka roga laga saar aad iyo aad xumaanta qofka u wado aniga maanta soo ilkacsanaa hadda maanta aniga aan isku dayo inaan dad isku diro waxaan waa adduun waa laga tegayaa aad iyo aad taasaa beenahayn markaan gud galo camalkaygaan la gelayaa si fiican dee asaga xumaanta u wada camalkiisa soo gudi ma gelaya aniga marka maxay tahay ajriyo marka ajri xasanaad waayahay gooya goobta geeya suugaantaada waxay ka mid tahay aadka loo jecel yahay rag badan oo dhalinyaro ah dadka ku taageera boqolkiiba 75 soomaalidu waa dhalinyaro dadka ku taageerana waa dhalinyaro dhalinyarada maxaad leedahay dhalinyarada soomaali waa mustaqbalka dalka waa kuwii madaxda noqon lahaa kuwa cabdinaasir maanta camal noqon lahaa weliye noqon lahaa aad kuwii ilka casa camal fanaanka noqon lahaa kuwa facebook qasala sida ilka casa camal marka waxaan leeyahay maxaad isku daydaan in aad soomaalida isku keentaan waxaadna isku daydaan in aad fanaaniinta saxayso madaxda inay saxdo in aad maaragtay aad u ogolaataan kuna taageersan maaragtay aad taageertaan maxaa yeelay maanta waxaa jira xaalad mar rabo inaan ka hadlo kulli waad
weydiinaysa ogahay iska suganaysaa taas dhalinyarada soomaaliyeed anaga naga yaryar waa mustaqbalka dalka dadkii bedeli lahaa madaxdii fanaaniintii shacabkii caadiya noqonayaan injineeradii noqonayaan marka qabiilka qabiilka wuxuu noo noqday cudurka la yihahda kansar qabiilkaa tahay ma garanayo ma garanaysid laakiin soomaalinimo iyo ciyaal xamar waagii ma haystaa waaga yaryareen wixii lii jir ma haystaa yaa tahay ma lisdhihi jirin soo xagee ka imaata buuxiye maa tahay ciyaal wardhigle maa tahay ciyaal cabdicasiis maa tahay kaaraan daynile daawadayaasheena iyo dhegeystayaasheenu waxaan u sheegaynaa muqdisho cable t v iyo sidoo kale nagala socda barteena facebook ee radio dalsan in goordhow sheeko xiiso badan oo ay wada sugayaan igu sawir ayaan soo wada laakiin gooya waay markaan ana waxaan dhihi أنا الشعب ضخ مظهرة فيسبوك أنت أقف مظهرة أدي لي كرواية لكن أدي لي كرواية إسكندافة ولا لي كرا كلية أستي بقر كرابك بقر كرابك ما تهاي شعبك الصومالي فسمكان كبدل بيا وقرد ونوصل قبل دون السوغان تاس وانتي كاميرا سوغان تكيت كباحد وين دلسن موجودة وسوق قبل دونا شيكذا igu sawirna dibaa u dhiganaya dhegeystayaal badan waxaan saadiraas waxay leeyihiin sheekadan maxaa dib ugu dhigaysaa qaybaha danbaan rabaa in siday ku bilaabatay iyo sida ay tahay maadaama ay sinninta BBC UK-ga Facebook horta aad u khasabtay maadaama ay ka wadanaga daasi waxaa la arkayaa ninbaa intuu mobile soo qaato dameer dameerni ahaa igu sawir waa sheekada ninka dameer xambaarsan sama waan arkay inta sawiraa arkaysa ee sheekooyinka igu sawirkee kuuga yaab badnaa ilkaasoo ما يشيء كركاسة كل حاجة ده كل حاجة ده والله يا بلي لا يشيء مين في كل حاجة مين كقبر بحجر رسول القبر يدعك القبر بيها ويصور وجهك صور كأركب مين ده بالله يصور ما يقدر يدير بالله راس أفريقيا ما له يدير كبر في يصور معك هاي واسكت صار نقدنا هاي ilkaasi markaan gabagabaa joognaa barnaamijkan soo gabagabaysan doonaa biima cabi karaa dhegeystayaal badan aad ayay u danaynayaan sheekada markan aan soo wado waxaad naga daawanaysaan muqdisho cable t v barteena facebook ee radio dalsan iyo sidoo kale waxaad naga maqli kartaan mawjadaha kala duwan ee dalsan sheekadana leeyahay igu sawir halka ay kasoo bilaabatay halka ay ku socoto dhegeystayaal badan aad danaynaya dada waxay leeyihiin hadalhaynta baraha bulshada ma sax ah ma arrin kalaa jirta ilka casi balcaawa hanaga dabageeya dalsan oo joogaa maxamed xasan jabaan iyo dhegeystayaal badan oo malaayiina su-aashaas aad noo soo weydiinayay dhegeystayaasheenu aad ay u danaynayeen haye bal sheekadaas naga dabageeya بسم الله الرحمن الرحيم أنا محمد غيث القعاس waxaan ka heesay sanka duudu shacabkaygana uu heeliyo aad iyo aad south african ka heesay south africa iyo maqal shacabkaygana uu heeliyo waxaan ka heesay tahriibka aad iyo aad shacabkaygana uu heeliyo aad iyo aad badda iyo dahabka in la dhacayo ayaan ka heesay shacabkaygana uu heeliyey dowlado badan oo dowladda ka horeysay ayaan heeso aan ku toosinayo u qaaday oo dhaliil iyo ammaanba intaba isku qaatay xasan sheekh markuu soo galay heesii aan u qaaday ee ammaanka habaan hayaa aad iyo aad heesii aan ku dhaliilayna waan haynaa dowladda maanta jirta ee shanta soomaali markii ay soo galaysay doorashadii ama kambeynkii ilaahay baan kuugu dhaarshay daacad baa tahay ilaahay baad ka cabsanaysa qof biniaadanka ma cabsanaysa aad waxaad ii sheegtaa hal fannaan waa hal fannaan
oo Soomaaliyeed shakada dhabta gaaraysa way horta kaftani baashaal baad aad iyo aad hal fanaan oo waxa ii sheegtaa kambeynka igula jiray ama kambeynki farmaajo ku jiray hal fanaan ii sheeg fanaaniinta waxaa ku jirta hal fanaan oo Facebook live soo galay ii sheeg hal fanaan oo farmaajo ama shanta Soomaaliyeed ku taageeray oo kambeynkiisa ka qayb qaatay ii sheeg hal fanaan oo xaaladda Soomaaliya ka jirta ka hadlay ii sheeg fanaanka kaliya arrimahaas hal fanaan oo shacabka Soomaaliyeed hees ugu yeeliyay ii sheeg oo caane astaghfirullah fartuun cumar dib aan noqono South Africa hees bay ka qaatay aad iyo aad heesa badan oo waxaa jira kuwa wadaniya oo la qaadi laakiin dowladan hadda dhisan waxaa jirta fanaaniintii runtii u ololeynay madaxweynaha hadda talada haya Cabdilaahi Farmaajo nacam dowladan hadda jirto nafteedana hore hadda ku sheegaya walaalkii Cabdinaasir aad iyo aad dowladan ma oga aniga camal oo wadani ayaa xaniyihiisa ku soo saaray ma garad oo taageerayaashaada iyo dadka asxaabta ala tahay aad ku dhiirigelisay in kambeynka ay qayb ka qaataan waxa weeye farmaajo iyo dowladda qof laga xiga ma laha waayahay samaha aan ku dhamaystiro walaalkay markii farmaajo saa loo doortay fanaan walba dhexda soo xirtay oo heesa badana loo qaaday maha brother daba qaara dhulka isla dhacay brother hoogaya baaye ayaa bilaabay heesu ma qaadan aniga heesii aan qaadan ma soo daani hataa magarad heesayga dib baan u dhigay waxaan dhahay maanta aniga guushi aan rabo waa gaare aad iyo aad oo qofkii aad lahayd aniga wasiirka dalka u baahan yahay madaxweyne noqday meeshii aniga aan heesi lahayn fanaaniinta kaleeta ayaa dhaxashay aad iyo aad markaan aan qaatay brother nin guulaystaanahay aad iyo aad waan imaaday ujeedkaagu waa gaartay listen dadka qurbaha jooga ayaga xamar ma joogaan Puntland ma joogaan Khartoum State ma joogaan Jubaland ma joogaan waxay joogaan qurbaha joogaan wax xaaladda maanta jirto meediada ha kala socdaan aad iyo aad samaana u arkaan wax meediada maanta la soo gelinayo laakiin xaaladda taagan maanta ma jiraan aniga maanta haddaan anu madaxweynahaaga haddaan maanta sawir kula galo wadaniga weyn maxamed aan sawir la galo maxamed cajiib aan sawir la galo oo qof walba oo Soomaaliya aan sawir la galo oo aan u ballan qaado in aan wax u qabto aan waxban u qabanin aad iyo aad in adeer ma wax laga hadla ma oo marka heesta waxay tahay waxay ku socotaa heesta shalaysa aniga heesti farmaajo horta sheekan ku haya waqti badan ma malaya aad iyo aad waqtigaas shanta Soomaali inta aniga wareerinaysa aad iyo aad baan salaamaya shanta Soomaali meel baa joogtaan oo idin jeeda waxaan baan ka hadlaynaa fanaanka waa adduunka dhan fanaanka fanaan walba dowladdiisa kuwa wax ku toosiyaa jiro aad iyo aad oo mararka qaar laylaha la sheego loo sheega shalay marka aniga dowladda xasan sheekh aan dhalinay wadani dhalay waa leeyahay libax laba ma leeyahay marka ujeedka heestan waxay tahay waxyaabaha is leedahay dowladda ku dhalisan tahay darteeda loo sameeyay oo loo soo qaaday soma exactly heestan waxaan u suubiyay dowladda dadku way kala daran yihiin dadku way kala daran yihiin gabadha Faiza la dhaho oo xilligaha ahaa ciidanka militariga ka tirsaneed curyaanka ku noqotay aniga dogal ka soo noqonaysa ma ka sheekeyn karo marka gabadhaas markaan ka sheekeeyo caloosha xanuunta aad iyo aad waxay ka ballan qaadeen inay qaadaan waxba lama dawlad waay gabadhaas marka in loo qaado waxba lama aha laakiin marka ilaahay yiraahdo ayaa gabadha la qaadaya ma garat waayahay marka waxay ku timid gabadhaas ayada waa kala daran yahay ku dhahay meeshan qorshayaal inda cunug ku qabato iyada tarq la dheelaysaa brother
idinka atar u dheelaysaa aad ma santa ilka casi oo ku mahad celinayna sida wacana dhageystayaasheena aad ugu sharaxday heestan igu sawir oo dad badan dowladda ku toosinayna waayahay aad ma santahay ugu dambeyn marka inta aan soo gabagabeyn hadal aan ku siin waxaan jeclahay qayb ka mid ah heesta inaan wada dhageysano inta kuwa waxay naga daawanayaan muqdisho cable tv kuwa barteena facebook radio dalsan naga daawanayaan kuwa mawjadaha kala duwan ee dalsan naga dhageysanayaan maxaa dhihi lahayd hadalka ugu dambeeya soo koob waqtigana aad u nooga dhamaaday dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan leeyahay meel walba joogtaan isku duubnaada danta dalka u dadaala shacabka Soomaaliyeed idinka ayaa maanta wixii dhibaataysan caawin karo iscaawiya ilaahay ka cabsada qabiilka iska dhaafa waayahay aad u mahadsantahay waa ku mahad celinayna qaabku cani barnaamijka aad nagala qayb qaadatay dhageystayaal badan ayaa fariimaha gaaran 434 ku soo hadlaya waxaa ka mid ah dhageyste lagu magacaabo muqtaar oo jooga warta nabadda ilka case aad ayaa u salaamaya waa wadani dhab ah noolo ayaa leeyahay uu mahadsan yahay dhageyste kale lagu magacaabo qadaro oo joogta waa beri waxay leedahay cabdinaasir ilka case aad ayaan idin salaamaya anigu waxaan leeyahay fanaanku waa fanaan weyn aad ayaan u taageeraa waxaan jeclahay inaan ogaado heestii soo هو ففاهية فنانك هذا ما تصدق كل هذا علمي نادي جستك الوحوش وقري magacaygu waa Caaisho waxaan joogaa waa bari ilka case fanka rajam ka sii qaba ku sii jiri doona mise dhawaan ka bixi doona ay leedahay fanka ma sii muddo ku sii jiri doonta ma sida u dhaqsiya badan ka tanasuli doonta lagu weydiina dadaan ogahay in albaab ka saaro fanka ma baahay waa aad ma santahay dhageysta kale waxa uu soo qoray magacaygu waa Anisa Laki waxaan ku suganahay degmada Boondheere oo hadda idaacadu ay toos dhageystayaashu uga socdaan muqdisho cable tv iyo sidoo kale waxaa laga daawanaysaan barteena facebook radio dalsan waxay tiri anigu ilka case aad ayaa u taageeraa heesaha raabka waxaan leeyahay ilka case noolow si wata heesaha wadaniga iyo sidoo kale waxay tiri heesaha jacaylka iyo inta badan heesaha aad ayaa u taageeraa wax su'aal ma ku qabo laakiin in fariinteeda hadii ay soo gasho la akhriyo aad maqasho aad ugu farxaa ay tiri waayahay waa mahadsantahay walaashay waa ku mahad celinaa Anisa ayaa la yiraahdaa Boondheere ay joogtay dhageysta kale waxaa la yiraahdaa Muqtaar waxa uu ka soo hadlaya degmada Dharkeley ee gobolka Banaadir wuxuu leeyahay ilka case salaan kal iyo laab iga gaarsii marka hore حقول جوا عوان أنا أسوي كل جوا مختار يجي وصور ماشي ما وتينا هذا وتينا هاي أهلا وسلام عليك عسى وأنا تاجرة حلي هاي فنك وادنو ليسي مجا عيادنا سميسي ما شاء الله سيدا بكوسي سؤال كله هاي ومحسنت هاي وكم هالعلة دقيستك أفر سدح أفر دقيستك كوسو هذا حلي هاي إلك عسى أنا بحاول يجيها محن عبي هاي ilka case maxaa nacabtaa lagu leeyahay maxaa nacabtaa bal weydii qofka weydii dhageysta magaciisa ma soo qorin laakiin wuxuu leeyahay ilka case waxaa weydiin lahaa muxuu nacab yahay keliyu soo qoray waxaan nacabahay wixii shanta Soomaali nacab farto aan nacabahay aad iyo aad shanta Soomaali daan nacabtahay ilka case ma ku nacab yahay ku tashanaa ma waa ku tashanaa waa aad u maasantahay dhageysta kale waxaa lagu magacaabaa nasteexanalka waxay joogtaa degmada Shibis ilka case cunto la cuno muxuu jecel yahay inta joogtaa Shibis cunto si loo garan tahay nasteexanalka ha cunto la cuno muxuu jecel yahay ha ودكعب يبقى ودكعب جعشاي هاي أنا ما تصدق كل ما تعلني بس فقط ما سنت هاي نستيحة وفيليا إنسى أشياء ودي سير كعسى جواتو كبحيي تقن عليه دقيستي الله راح يفرمه كسو هليا وحاكم ذا دقيستي لقوم مقعاو شمس وجوكتا دقمدا يارشد قارهان جيرا الطوبة يتري أنا وحنده لها الكعسى أسيقو
fanka goormuu soo galay sanadkuu soo gala jeclahay inaa ogaaday tiri 2005 waayahay aad aa mahadsan tahay dhegeyste kale waxau yidhi magacaygu waa maxamed muuse maxamed cali waxaan joogaa degmada mahadaay ilka case waan taageersanahay waxaan ka helay heesihiisa wadaniga oo keliya ii soo qoray waa mahadsantahay ku mahadcelinaynaa qaabku cali barnaamijka aad nagala qayb qaadatay dhegeyste kale fariinta gaaban ku saadlay waxau leeyahay assalaamu calaykum magacaygu waa samiira cumar degmadu waa boondheere ibaax ilka case waa ku salaamay ayuu leeyahay waayahay waxaa markan telefoonka ku jira musharax horay ugu soo tartamay madaxtinimada dalka ambasador maxamed cali nuur americo marna soo ahaa safiirkii soomaaliya ee dalka kenya ambasador ma maqashaa ambasador caawa idaacadda dalsan iyo muqdisho cable t v barnaamij toos kaga baxaya oo ilka case oo marti ku yahay bal soo dhawow aragtidaada waa salaamaya adiga iyo ilka case waa salaamaya waa xamar cadde xamar baan nahay ilka case waa salaamada saxad waa kaa qaaday ilka case aad iyo aad baan kuu salaamaya anigana waan ku taageersanay taageerada dadka ugu horeeyana soo moogid ما شاء الله ما شاء الله ما تنكاي حمد عدي وحشة توي أمريكا حمد بانهاي قبيل المنطقة الله ورنتيس عالمك بلوغ الساس وضع عالمك بلوغ أنك قطع ورانية أمباسدور تاغيراشن كعسم كجرتا ما شاء الله تاغيرتنا وتعب شو هلا أنت تاغيري سيسا ما هسا وجه عشا أمباسدور منو شيء كرتا انت وجهت وعاو انت يا حمر يا حمر أمباسدور واحد سؤال فنانك إلك عسى عاوة دينا سمي جرتا فنانك وسلامية إن شاء الله تعالى حمر والمنظرة مكان ما نروح حكينا كله أسبوعين هذا وتاجرتنا هاي وشفتي وتمشي إن شاء الله هاي هي ما سنتهاي أمباسدور بورك عمر وسلامة بورك عمر